السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن داوديال دمانتينبا كنا سودا وهذا برنامج كأني دالبودا وإذا كأوها والبأسها عدن أوكله وسيدة في النمى يوكا تايم أتسي توصل نوجا داوتان أما أنكو كلنا هودا تلفزيون كعالم غير رويال 24 استوديو هنا أنا كلنا هاي مجال لندن داوديال وبرنامج كأني دوحة أنا مالنا يا مركز ديان كنا أد مقشان يته صح يجي هردا يجي إن أتكوبة تلاقي شامبا سلامه يولي تهنيده iyo waliba dalashooyinkii in aad diyaar ba noola tihiino oo aad jeceshihiin ba inaad caawa barnaamijka nagala qayb qaadataan mar walbana telefoonadu shaashada ay idin ku qorayeen aad soo horfadhidaan dhinaca emailka laftigeeda aad nagula soo xiriiri kartaan wadalbadaawa@tvroyal.com idinka oo waliba si toos ah nooga daawan kara barta internetka aan idhaahdaba iyadoo waliba technology-ga hore u martay meel kasta oo aad joogtaba aad naga daawan karto haddii ay noqoto ya mobile iyo laptop mar walba ifan iyo iPad aad naga daawan karto adoo wax dhishaba aan u baahnayn wherever you are www.tvroyal.com iyo baad kala garanaysaa si toos ah ayaad noo daawanaysaa waxaad nooga barateen mar walba daawadayaal in aanu anagu idin badaa furno oo barnaamijka anagu aanu hees ku furno anaga dhinacayaga ka timaada mar walbana heestaasi de waa dooqayaga wixii ka dambeeya idinkaanu idin dhaafnay caawana maxaan idin haynaa Naasir Yare ayaa idin soo diyaariyay waa dooqiisi ya kala he waxa weeye raxima aan idhaahdaba Mahdi Abuukar iyo waliba heestii ha ilmeynine waa tanaan idin kala bixi daawasho wacan
وهاك داوديال عدكي معانا يا كلها رحيم مهدي أبوكر المينين ميتري أياد إن لداوين سندوابة شعلها هيبة عاوة إن عاد كبهشين دوخي ناصر يري أيوها إما كسويحي كتن بيا إذا كان إيدين ديننا يبل دوخيننا aanu idin la eegnaba mar walba telefoonadu way idin furayeen shaashada hortiinana way idin ku qoran yihiin bal qofkii ugu horeeyay caawa igala qayb qaadanaya barnaamijka ayaan jecelahay inaan u yeero hello assalaamu calaykum hello assalaamu calaykum وعليكم السلام dalbada waan kugu soo dhaweynaya magacaaga aad u mahadsan magacay Cabdullaahi Keenan oo kala soo hadlay dalka Holland hay Cabdullaahi ku soo dhaw dalbada okay qadka ma toos ugu jiraa khadka toos ugu jirtaa stuudiyaha dalbada ayaad nagala hadlaysaa maxaad jeceshahay inaad kaga qayb qaadato barnaamijka ma tahniyad ma salaan ma dalabaad maxaad jeceshahay waxaan ugu ab qaadan lahaa in gabar walaashay oo ku aqal gashay dalka Holland ma sha Allah haye inaan meesha ugu hambaliyeeyo haye marka labada bishii ku aqal gashay Saare Xuseen Maxamed isaygeeda Shinaaqiya oo meherkeedu ka dhacay dalka Holland ما شاء الله همبليان لين هاي أنا كنا. مركا هس مدل بكرة. Absolutely هس أودل بالهايد. هس وحدل بالها إن حوالي عروس. هس دي عوالة آذن مياه. عوالة آذن ها. هس عروس. وهاجك أدبض ما ستاي عبد الله طلب كاجا وحن كوريتشي فرسم بيقاندينا إيجا إنه ده دبالن دونا كيد كرويلا إنه صورة جليها هساق ورحت بدن هل كان عندنا قلة دعوتان مركا حلكي أنا قبل يجلو وري قبل خدك حاجة عنو يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبت طبعا كبسوا دوينيا ما قاعد هذا ما تسن. إنه دفايس وحنا دقيقة كوخ داير عليها وعملوا دفايس هذه أطبق سلامي ولا. وكاقع الله.
Mustafa Yusuf Nuur waxaan ka soo hadlayaa dalka Norway caasimada Oslo. hay Mustafa fiicanta walaalo aad baan u fiicnay aad iyo aad ku salaamayaa Aamina. waa kaa qaaday walaalo adna waan ku salaamayaa haye salaan tahniyad maxaad caawa adigu jeceshay inaad barnaamijkaad ku soo kordhiso Mustafa walaal waxaan doonayaa inaan ku soo kordhiyo waxaan horta ugu horreyn salaamayaa marwadeeda qaaliga Zainab Axmed Cali iyo caruurtayda Farxiya iyo Xamse iyo Ubaad iyo Bilal iyo Yusuf iyo Muqayr dhamaantood adigana aad baan ku salaamayaa ma sha Allah waxaan jeclaan lahaa haddii aa haysaan Aamino dhufaysay heestini Burco waad ka raadsan malayn cali Burco qaali jiray ayahayga inkastoo aan u malaynaya inaydan hayn adiga aad heesta u jeclaawinay soo deysaan ilaa maxay bal igu celi midhaheeda Mustafa waxay oran malaadayahayga calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay isu keen qoray heestini ma garanayno bay isu keen qoray adna wali ma dhaadanid Soomaha adna wali ma dhaadanid ha walaal ma sha Allah Mustafa heesta bariyaha ma maqal waxaan jeclay inay nimadeena farsamo yaqaanadu ay kaydka dib ugu noqon doonaan haday suurtagal noqoto caawa nala daawan doonta aad baad u mahadsan tahay waxaan lahaa aamin maadaama reer Burco heestaas la waay ma laakiin hadii la waay waa nasiib darre heesta lama waayin wali lama waayin laakiin waa in kaydka dib loogu noqdaayo heestii la baadi doonaa Soomaha haye way hore laakiin waxaan maadaama aydan hayn heestii aan dalbaday adigu baa ii dalbi doona insha Allah hadii Ilaahay ka dugaado aadna ku salaamaya walaal waa hagaag aad baad u mahadsan tahay aniguna salaan aad u qiimo badan ayaan ku salaamayaa Mustafa iyo waliba xaajiyadiisa Zainab Axmed Cali caruurta oo dhanba waxa aan leeyahay aad iyo aad ayaan u salaamintihiin xilkaasna waxa aan u maleynayaa in hees qurux badan aan u saari doono bal khadka xiga aan u yeedho assalaamu calaykum wa calaykum salaam dalbooda waan kugu soo dhaweynayaa magacaaga walaalo walaalo ku dhawaa magacayga waxa ku dhahaa Mulka Cabdirashiid maxaa lagu dhahaa igu celi Mulka Cabdirashiid haye xaga joogtaa mulkii dalka Germany Germany haye halkan ka salaamay hooyaday aad ku jeclaa Farxiyo Nuur Cali aabay Cabdirashiid Ibrahim Geese walaaladay dhamaantood heer Ibrahim Geese meel kasta ay joogaan heer Nuur Cali heer Xajage meel kasta ay joogaan dhamaantood salaamaya waxaa si qaas ah salaamaya gabarta yar aabreertu waxay Muniro Cabdiraxmaan waxaan ku soo gabagabay lahay adigu Aamin Dhufays iyo Naasir Yare dhamaantiin wali salaamaya oo ka qaad maxaa tilqaaliya heesin dalba karaa absolutely maxaa dalban lahayd heesooda Cabdiraxmaan hodan Cabdiraxmaan heeseeda mid kamid ah miya heest in particular hees waa hagaag aad bay u mahadsan tahay mulkii anigii Naasir Yare badii aniguna isaga ka masuulahayo de wuxuu igu wariga gaarsiiyay waanu ka qaadnay salaamta aad ka quruxda badnayd adigana waan ku salaameynaa mulkiyay dooqaagna waad nala daawan doontaa insha Allah adii ilaaha awood la idmay bal khadka xiga aanu yeedho assalaamu calaykum assalaamu calaykum calaykum salaam dalbooda waan kugu soo dhaweynayaa magacaaga ii horeysay magacayga Iidle maxamed aadan baa leeyahay walaal xaga joogtaa Iidle waxaan joogaa Hall City ma sha Allah haye waxa weeye barnaamijka waa la socdaa masalaan matahniyad maxaad kaga qayb qaadanaysaa marka dad laba socotid waan kaga qayb qaadanaya walaale salaan haye soo daa adoo dhinaca telefonkayga la soconaya waxaan salaamayaa muslimiinta caalamka ku nool dhammaanteed haye ila dhinaca telefonkayga la soco iska naaqus telefishinka please marka xiga waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto badal iyo dibadba haye marka xiga waxaan salaamayaa hooyada iyo aabaha ku nool Soomaaliya saxaabada waxa la wixii garanay oo meel kasta ay joogaan dhamaan iyo qaraabadayda qaxootiga oo aan ka yimid dhawaan dad badan oo ku nool asxaaban ku leeyahay xidid iyo xigaal iyo saaxiibo iyo nooc kasta wala ma garan haye marka xiga waxaan si khaas ah u salaamayaa walaalkay Xasan Yuusuf Muuse oo jooga xerada qaxootiga dhagaxlay Sara Cabdiraxmaan Jaamac Sahra Cabdiraxmaan haye abdi oo iyadana in adeertay oo joogto qaxootiga waxaan salaamayaa kale Ciise Muuse waxaan salaamayaa Xaawo Ciise Aadan waxa la wixii magacayga muuqayo taqaana salaamayaa xidig nin la yiraahdo isaga aan aad saaxiibna qaxootiga jooga dhagaxlay ma garan waa hagaag waaba jecel inay dhamaantood kaa gudoomaan meel kasta oo ay joogaan bay si toosaba ku daawanayaan iile adigana ay salaanta mid lamid ah
ay kuu soo gudbinayaan dee caawana tahniyadaha iyo dhinaca warqadaha nooga yimi aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. waxaan jecelahay in aan kuba furo oon uba yeedhaba maanta 2 duhurnimo magaalada London aan idhaahdaba hospital ku yaala oo leedo North Middlesex Hospital wuxuu ku yaalaa dhinaca iyo North London waxa wiil ugu dhashay wariye agaasime annaka naga mida waa Fuaad Xaaji Cabdiwali aan idhaahdaba isagoo ahba dee waliba agaasimaha Muqdisho ayaa maanta wiil ugu dhashay isaga iyo xaajiyadiisa Yaasmiin Cumar Kule aad iyo aad anagu oon u kala harin dhammaantayo hadday noqoto maamulka iyo hadday noqoto wariyaasha Royal TV meel kasta oo ay joogaanba wiilka yar soo barbaar ayaan leenahay hambalyo runtii aad iyo aad u qaaliya ayaan u direynaa Fuaad iyo Yaasmiin Maxamed Yarena waxa aanu leenahay ilaahay ka dhigo kii adeeca Fuaad iyo Yaasmiinba hambalyo way safar badan tahay hambalyooyinkii aan bal hadda waxaan laga soo dalbaday Cawaale Aadan heesu leeyahay wal naastirada wuxuu leeyahay heestu waa diyaare aan idin kala baxay waa tanahay daawasho aan bartaad ku nooshahay u soo boqolay intaan bukooday bastay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intaan bukooday bastay ahaaday ku baabshay ku badi goobay barada diido bastay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intaan bukooday bastay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intaan bukooday bastay ahaaday beerka jirka ku beeray boogta dhigii ku baahay adaygu beeray buuqa jacaylkan beegtay beerka jirkii ku beeray boogta dhigii ku baahay adaygu beeray buuqa bildhaan wanaagay hilaac baxayay biligta roobkay halmaadi baan dartaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinta hiife naftayda baxsan maad badbaadin miso bestaasaad basray ku dhaafi bildhaan wanaagay hilaac baxayay biligta roobkay halmaadi baan dartaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinta hiife naftayda baxsan maad badbaadin miso bestaasaad basray ku dhaafi ku badi goobay barada diido bastay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intaan bukooday bastay ahaaday bildhaan wanaagay hilaac baxayay biligta roobkay halmaadi baan dartaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinta hiife naftayda baxsan maad badbaadin miso bestaasaad basray ku dhaafi taabtee biiray dareema buuxshay adaygu beeray buuqa jacaylkan biiray bogayga taabtee biiray dareema buuxshay adaygu beeray buuqa bishaaradayday barwaaqadayday badhadhadayday bilis qurxoon dartaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinta hiife naftayda baxsan maad badbaadin miso bestaasaad basray ku dhaafi
bishaaradayday barwaaqadayday badhaadhadayday bilis qurxoon dantaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinta hiife naftayda baxsan maad badbaadin bisoo bastaasaad basray ku dhaafi baabshay ku badigoobay barada diido bestay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intoon bukooday bestay ahaaday bishaaradayday barwaaqadayday badhaadhadayday bilis qurxoon dantaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinka hiife naftayda baxsan maad badbaadin misoo bestaasaad basray ku dhaafi baabshay ku badigoobay barada diido bestay ahaaday bartaad ku nooshahay u soo boqolay intoon bukooday bestay ahaaday bishaaradayday barwaaqadayday badhaadhadayday bilis qurxoon dantaa basaasay baadiyoobay hurdama bogto barkiinka hiife naftayda baxsan maad badbaadin misoo bestaasaad basray ku dhaafi waa hagaag daawadayaal codkii macaana ee cawaale aadan ayaad nala daawanayseen haddaan ka gudubno telefoonaduna way fara badan yihiin barkhadka xiga ayaan jecelahay inaan u yeedho halo asalaamu calaykum calaykum salaam dalbada waan kugu soo dhaweynaya magacaaga qaaliye muna li dhahaa baay muna xagee joogtaa waa mahadsantahay waa ku dhawaa london haye muna tahniyad salaan maxaad adigu jeceshay caawa inaad nagula caweyso abaay salaanaan wadaa waxaa marka ugu horeyntii meeshaan waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan cajiyo faadumo oo si aadka u jeclahay walaashii aan ifka u jeclahay iyadana deeqa maxamed iyo seegeeda muxudiin xasan cumar waxaa kaloo halkaan ka salaamayaa walaalkii maxamed cali axmed oo ku nool norway asxaabteeda haddii ma lasoo koobi karo waxaan si qaas u salaamayaa saaxiibkeyga qaaliga igu ah sida aadka ana u jeclahay naasir yare adigoo aaminaan oo ka salaamaya abaay hees ma dalban karaa absolutely abaay waxaan rabaa heesta oo aawahe koobigeeda waxaa qaada raxiimo originaalkana faaduma qaasin alla naxariisto ilaahay u naxariisto wahgag oo reer codsigaagii farsamo yaqaanidan u gudbiyey naasir yare de salaanta aadka u qaaliga ah waxaan u malaynaya inuu kaaba guddoomayo xilkeedii aniga sidee isaguna midtaa lamida ayuu kuusoo gudbinayaa khadka xiga anu yeedho asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum asalaam dalbooda baan kugu soo dhaweynaya magacaaga magacayga waxaa la yidhahdaa hindi qalab xoor waxaan kasoo hadlayaa galmudug state gobolka hobyo maxaa lagu yidhahdaa baa tidhi hindi qalab xoora la yidhaahdaa haye waxaan kasoo hadlayaa galmudug state haye qalbiye salaan tahaniyad abaayo waxaan wadaa tahaniyad aada iyo aada xaggayga uga culus haye waa ma arkaysaaba gobolka aan kasoo hadlayo baby yar oon habar yar oo ahay oo ku dhashay dalka norway ayaan leeyahay soo barbaar babyga waxaa la yidhaahdaa yuusuf maasha allah waa loo bixiyey waxaan leeyahay nebi yuusuf kii raaca allaha kaa dhigo waxaan tahniyad u dirayaa oo kale aabihiisa bashiir nuur cadde iyo hooyadiisa galbeed axmed jimcaale oo baybigooda mataqaanaa norway ugu dhashay magaciisana loo bixiyey yuusuf iyo caruurtooda kale oo la yidhaha yonis xamsa waxaan leeyahay habar yar adinkana waan idin salaamay maasha allah waan jecelahay baqalbiya in ay kaa guddoomeen dhammaantood tahniyada runtii aadka u qaaliga ah baybiga yar ee yuusuf yarana soo barbaar ayaan leenaho ilaahay ha kaa dhigo kii dalkiisa dadkiisa diintiisa intaba adeeca waana jecelayba in ay waalidkii dhaleen ay kaa guddoomeen hambalyada aadka u qaaliga ah bal dhinaca telefoonada khadka xiga asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam dalbooda waa kusoo dhowo qaaliya magacaaga walaale aamino cabdi saalax farasiiska joogto weyaan aamino xaggee joogtaa farasiiska walaale aamino dhafeys aada iyo aad baan ku salaamay aada baan kaaga qaada qalbiga ma fiican tahay walaal aada iyo aad baan u fiicanahay maasha allah adna waan ku salaamaya walaal macaani maxaad inoo wadaa caawa salaan tahniyad walaalay waxaan salaami lahaa faamiligeyga maamaday faamiliga odaygeyga ubadkayga haye
hallo aad baan uga xumahay aamina uu ka go-ay telefoonkii waase jecelahay in ay soo noqoto oo ay weliba dhamaysato salaamaheeda halkan aadna waan u salaamayaa khadka xiga asalaamu calaykum calaykum salaam dalbooda waan kugu soo dhaweynaya magacaaga ii horeysi walaal waa ku dhawa magacayga waxaa la yaasiin cismaan shalle waxaan kasoo hadlayaa holland siciid maa lagu dhahaa yaasiin cismaan shalle yaasiin haye walaal haye yaasiin walaalkan waxaan tahnid ugu dirayaa adeerkay ku aqalgalay waddanka Sweden haye isaga iyo xaajadiisa hibaaq oo ku aqal 28 bishii maasha Allah December haye yaa kula diraaya waxay la diraayay walaalkii aad ku codka kor igu qaad yaasiin haye xamuud aad ayaan ugu direynaa waa adeerkeen qaaliga ah ku nool waddanka Sweden isaga iyo xaajadiisa hibaaq tahnid ballaaran ayaa ugu direynaa anoo dadka Holland ku nool maasha Allah waa jecelahay inay si toos ah idin daawanayaan yaasiin oo ay idinka gudoomeen hambaliyadaasi aadka u qaaliga ah anaguna de hambaliyo iyo ubax baan ka daba tuureynaa oo ugu hambalyeynaa arooskooda farxad leh in Ilaahay ka dhigo kuwii isku waare ubad khayr qaban kala helaan dhinacan bal khadka xiga aan u yeedho dhinaca tahniyadu haba i dambeeyaan iyo dambaalada iyaga ma dhinaca emailka hello assalaamu calaykum calaykum salaam abaysata waan fiican walaal fiican tahay alxamdulillah magacayga waxaa la dhahaa Ibrahim Xuseen Maxamed haye Ibrahim xagee joogtaa waxaan joogaa dalka Holland haye waxaan rabaa inaan u hambaliyo walaashay Sahro Xuseen Maxamed haye mar dhow ku aqal gashay waddanka Holland maasha Allah labada January dalka gobolka Den Haag iyo saygeeda Cabduqaadir Abuukar Maxamed Cabduqaadir Shiine ku magac dheer Agi maasha Allah haye marka waxaan dhihi lahaa wiil iyo caano gabar iyo caano intana waxaan ka salaamayaa hooyaday ayaan asaabun iyo familkeyga walaalahay dhammaan sida Cabdullaahi Caaisha Abubakar Maxamuud Ibrahim Saadiyo Sucaad kulle waan jecelahay in ay ka gudoomeen Ibrahim oo hambaliyadaasi anakuna waxa aanu leenahay hambaliyo Ilaahay ha dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela bal dhinacan warqadaha markana aan ku bilaabay runtii warqad aad qurux badan ayaan halkan ku haya waxa ay nooga timi wariyaasha Royal TV wariye kamid ah waxa weeyaan Maryan Gawle oo uga barateen dhinaca iyo barnaamijka codka haweenka ku baxa ay noo daadiiso looma kala maqna runtii aad iyo aad ayay tahniyadani ay u fara badan tahay family meel kasto joogo uu iskugu tagay aan ku bilaabay waxa weeyaan Aamino Cabdi Kariim Xaashi iyo waliba Cabdiraxiin Maxamuud Axmed iyo xaaskiisa Asma Shiine Siciid Booday iyo xaaskiisa habaryar Maryan Ruun Maxamed Jimcaale Yurub Cali Warsabiye odaygeeda Cabdilaahi Salaad Gaagaale iyo Xaashi Cumar Xuseen hooyo Xabiibo Bulxan Xasan iyo waliba Cawil Xaashi Cumar iyo Maxamed Ibrahim iyo Cabdi Nuur iyo Khadra iyo Sahra iyo Fartuun iyo Shukri iyo waliba Ubax Cabdilaahi Bulxan Fartuun Cabdilaahi Bulxan Deeqo Cali Bulxan Khadra Cali Gutaale Farduus Cali Geedi qale hada Cabdi Fataax Axmed Bulxan iyo Maxamed Aadan Maxamed oo loo yaqaan Bidixay dhamaantood waxay hambaliyo u dirayaan Ifraax Axmed Raage Xasan iyo Cabdi Qaadir Xaashi Umar oo arooskooda uu ka dhacay waddankaasi Holland 24 bishii December sanadkii aynu soo dhaafnay 24 iyada oo waliba ay farabadan yihiin aan loo kala hadhin hambaliyada arooskan waxa kale oo iyaguna aan ku bilaabay warqadan waxa lagu bilaabay waa Maryan Gawle laftigeedii Maryan Axmed Maxamed Maxamuud waa Maryan Gawle iyo waliba Sahare Yuusuf Saafi Yuusuf Deeqa Cali Faarax Deeqo Maxamed Xasan habaryar Faaiisa Ismaaciil iyo caruurteeda iyo waliba habaryar binti Shucayb iyo caruurteeda Xaawo Maxamed Aadan Deeqo Maxamed Xasan Kaamil iyo caruurteeda Xaliimo Axmed iyo caruurteeda Siciido Cabdi iyo caruurteeda Maryan Tukaale iyo waliba caruurteeda iyo asxaabta kala Xasan Cusmaan Sheekh iyo wali Cabdiqaadir Maxamed Xirsi Siciid Jiliba iyo xaaskiisa Maxamed Cabdi Kariim Xaashi Ciise Cabdilaahi Muuse iyaguna taaniyadaasi ay jeceliin kala qayb qaataan iyagoo u diraya arooska iyo aroosada waa Ifraax Axmed Raage iyo waliba Cabdiqaadir Xaashi Cumar waxa ay leeyihiin iyadoo arooskoodu ka dhacay waddankaasi Holland 24 December waa 24 isku waara ubad khayr qabana kala hela ilaahayna haydi ka dhigo labadii wada jire nabadgala aamin ayaan anaka u raacinayna bal khadka telefoonka ayaan jecelahay markana in aan u yeero hallo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam dalbooda aan kugu soo dhaweynaya magacaaga walaal adoo mahadsan
marka hore ku salaama waxaan hambali salaan halkan uga darayaa abtiga aadan nuur axmed iyo samiira xaashi ay magacaaga ii horeysay aad mahadsan oo galay magaalada shabeellada hoose magaca walaalo waa fahad xagee jooga fahad oo joog Norway haye fahad ha sii wado hambalida waxaan u diraa abtiga aadan nuur axmed iyo samiira xaashi haye marka heestan ka codsana haye maxaad codsan lahayd heesta maba garan mala waan gafo iga argudo nafta iga goyn cumar dhuule miyaa uu hagaag waxaan ku wareejiyey Nasir ku wareejiyey dalabaadkaas isaga ayaa mar walba inoo dhex dabaasho inoo kaydkaasi inoo dhex qaade waxa aan jecelahay in uu heestaasi uu inoo diyaar garan doono waxaase mar dhawato Mustafa oo iga soo wacayay Norway waxa uu yiri caawa hees buu iga dalbaday runtii aad u qiimo badan cid waliba garanayso oo heestaasna aad baan uga xumayadoon diyaar noo ahay laakiin haddana Mustafa waxa aan kugu bedelay dooqayga mar hadda xilkii isaartay aniguna waxaan ku dooray adigii xaajiyadaada baseen Maxamed Cali waxaan jecelahay wali daawanaysaano aad u fadhidaan bal dooqayga ila eego aan kugu wareejiyo heestaasi yaa kale waxa weeyaan runtii فنان عاد أقالية هسرنتي عاد أفر بدنا لعيد ولبنا هسيس أي تعيش هاي فانس كيسنا أي فر بدي هني قاعد دعو هستبرعو واتنا داشو عن basradii hargeysaad iyagaad la bilow tahay boqoradii faraxay ka bilaabay sheekada bidhantaada wacaniyo bawirkaaga gaarka berluladii berigee balad weyna joogtiyo basradii hargeysaad iyagaad la bilow tahay adiguna bureeqoy burahayo kaymaha baadkiyo baadkale bilcilkiyo galoolkii ubaxii ku baaljiro balliyada xareeda bannaanada ka muuqdaan adiguna bureeqoy burahayo kaymaha baadkiyo baadkale bilcilkiyo galoolkii ubaxii ku baaljiro balliyada xareeda bannaanada ka muuqdaan cirko bilig hilaaciyo daruuruhu ku beegmeen barisada cadceedii fallaaruhu bidhaasheen oo barisamaado dheer
barweyna geeliyo fardihii barqanayaan bannaanaadii togdheeriyo burcaad ku dhalato bari maysid khayrka barweyna geeliyo fardihii barqanayaan bannaanaadii togdheeriyo burcaad ku dhalato bari maysid khayrka bisin iyo quraaniyo burda kugu xijaabne boqor iyo dhacliyo busa kugu hagoogne bisin iyo quraaniyo burda kugu xijaabne boqor iyo dhacliyo busa kugu hagoogne baydraaxa iyo gabar cana buuxa iyo wiil baydraaxa iyo gabar cana buuxa iyo wiil allaan kaaga barinay cana buuxa iyo gabar cana buuxa iyo wiil allaan kaaga barinay cana buuxa iyo baydraaxa iyo gabar cana buuxa iyo wiil baydraaxa iyo gabar cana buuxa iyo wiil allaan kaaga barinay cana buuxa iyo wiil cana buuxa iyo gabar allaan kaaga barinay cana buuxa iyo wiil baydraaxa iyo gabar 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 cana buuxa iyo wiil wuu hagaag heestii burco iyo weliba codkii macaana ee aan idhaahdabe cabdirasaaq gaadaco de waxaan u malaynayaa dooqaygii de mustafiya xaajiyadiisii in ay ka heleen ba heestaasi markaad egto midhaheeda iyo de siduu u qaaday waxa aan u malaynayaa in aad ka wada hesheenbe iyo weliba dee inta taageerta ee jecelba fanaankaasi aadka u qaaliga ah bal khadka xiga aan u yeedho asalaamu calaykum calaykum asalaam dalbooda waan kugu soo dhaweynaya magacaaga walaal waa iidle maxamed adaan kugu soo noqday ma garat haye iidle walaali waa qurux badan iyo adoo mahadsan waxaan kaa codsanayaa heestii xuseen shire iyo shamse food haddaanan ku helin hog baan geli baan kaa codsanay heestii haraad miya haraad haa si wanaagsan waa hagaag aada baad mahadsan tahay aada buu u mahadsan yahay dhinaca warqadaha haddii aan markana dib u noqdo dee bilowgii brogramkan idiin sheego caawa dhinaca tahniyaduhu aada iyo aada ayay u farabadan yihiin warqadana waxaa kusoo farayaraystay oo nooga soo diray wadankaasi sacuudi arabiya weliba gaar ahaan magaalada riyaad waxa weeyaan sakariya xuseen quule isagoo oo jecel halkan in uu kala qeyb qaato tahaniyada arooska iyada oo weliba aan loo kala maqnayn oo laysugu tegay faamiliga iyo asxaabta intaba aan kuba bilaababa wuxuu yihi sakariya aabe bedel ismaaciil caamir iyo weliba deeqa ismaaciil caamir iyo yuusuf cismaan qowdhan iyo caamir bedel ismaaciil farxaan bedel ismaaciil iyo weliba suleymaan bedel ismaaciil iyo dhammaan reer ismaaciil caamir oo degan magaalada riyaad ee wadankaasi sacuudi arabiya iyo weliba aan raaciyo asxaabta iyo weliba ehladane waa sakariya xuseen qule iyo abubakar muuse tiriir dacar iyo maryan moxamed kamin khadra xirsi cali dhammaantood iyaguna waxa ay joogaan magaalada riyaad waxaana jecel yihiin in ay halkan farxadda iyo dabaaldega ay kala qeyb qaataan boqorka iyo boqoradda waxa weeyaan maxamed faysal maxamed iyo weliba nadiira bedel ismaaciil oo meherkoodu uu dhowaan ka dhacay magaalada riyaad ee wadankaasi sacuudi arabiya arooskoodana looga dabaaldegay wadankaasi norway waxa weeyaan meherkii ayaa waxa uu ka dhacay riyaad arooskiina waxaa looga dabaaldegay wadankaasi norway waaban u malaynaya de sakariyow in ay si toosaba idin daawanayaan dhammaantiin ehelada iyo asxaabtaba oo ay idinka guddoomeen arooska iyo aroosadu waa maxamed faysal maxamed iyo
nadiira bedel ismaaciil arooska farxadda aad jeceshiin aad kala qayb qaadataan iyo weliba hambalyada quruxda badan ee halkaasi aad uga soo gudbiseen aniguna waxa aan leeyahay arooska iyo aroosada isku waara ubad khayr qabana kala hela dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa ugu horeeyaba sakariye xuseen quulo iyo dhammaan asxaabtaba waxaan leenahay islaan aad qurux badan naga guddooma anagoo aan weliba jecelin aan hambalyada kala qayb qaadano annaga bahdeena soo diyaarisa dalbood daawo in aan kala qayb qaadano hambalyada halkan ay uga dirayaan dhammaantood waa maxamed faysal maxamed iyo nadiira bedel ismaaciile waxa aanu leenahay ilaahay idinka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabna kala hela aamiin aamiin warqadan ayaan jecelahay inaan markana aan soo qabto waa warqad runtii aad u qurux badan oo de farsamo yaqaankeena naasir yara gacanta iiga dhiibayo waxa weeyaan asxaab runtii isaga aad iyo aad ugu qaali ah aan kuba bilaababa waxa weeyaan shukri cabdisalaan suleeqa cabdisalaan deeqo cabdisalaan fartuun cabdisalaan dhammaan reer cabdisalaan iyo reer shiina salaad faa'iiso salaad sacdiye salaad shukri bukhaari iyo weliba كين تلشة مليون عبد الله إيو نمع حسين هاني حسين إيو خديجة حسين إيونا وحي هل كانت تهنية آد وقالية أي وقدريان وفاضم عبد السلام حاجي آدن أولو يقانو فاضمينا إيو عبد الرحمن عثمان عمر أو مهر كودو كدعي مقالة لندن ناصر يرى أيها وحي وشعليها إنو هل كان وقدورو رنتي أسها آد قرح بدنو أو أمان aan loo kala reebin magaceeduna iyo waliba Faadumo waxa aan u maleynayaa de Naasrow in aad aroosada halkaasi magaceeda aad ka tixraacday waxaan jecelaynay ka gudoomaan fanaan runtii aad u cod macaan ayaa heestaasi ku farayareystay iyo kale waa Maxamed Bike waxaan idin leeyahay arooska iyo aroosada Faadumo iyo Cabdiraxmaan ka gudooma watana heestii Faadumo daashawaan haweenkiyo waxa tahay qof qiimo leh Faadumo qurux wanaage qurashtii haweenkiyo waxa tahay qof qiimo leh qalbiga ku raaco nafta
hablaha kacay kumaan arqiyaastee hani baby adika qadarin badan qarnigan hablaha kacay kumaan arqiyaastee hani baby adika qadarin badan umaney intaad nooshahay adduunyada xariyo dhibaatiyo casiiskeen dhibka qariyey umaney intaad nooshahay adduunyada xariyo dhibaatiyo qadirkeen dhibka qariyey umaney intaad nooshahay adduunyada xariyo dhibaatiyo qadirkeen dhibka qariyey umaney intaad nooshahay adduunyada xariyo dhibaatiyo qadirkeen dhibka qariyey وهاجا عدكي معنا محمد بيكي محيي فاطمة قرح وناجي ما شاء الله ده وحا أنا ملينا يا ناصر يرو إن أيتة فاطمة كابة جودونتي هستا سي قرح ده بدل أتكو أسنتي يدي ده حاجة جد بوا عبد الرحمن عثمان عمر أنا داونا يا با ستة سيكوبا مهد علينا يا بي وهاجا خدك حجان بلو يا رب سوري السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام دلبود داون كوسو دوين يا مقعة قاعدة معتصن abaayo magacaygu waxaa xasana jimcaale yabarow xasna waxaan kasoo hadlayaa london hay xasan kusoo dhawo dalbood daawo iya waa mahadsantahay adig iyo inta programka haweeyeyba waa aad baan kaa guddoonay adigana waan ku salaamayna qaaliya haye abaayo waxaan rabay inaan halkaan hambalyo oga diro laba cunug oo aan iido u ahay oo isku guursadeen Soomaaliya maasha Allah oo la kala dhaho حسن عبد الله جمعاله عبد الله محمود جمعاله oo ku aqal galay 29 December xagee ku aqal galeen Soomaaliya Muqdisho ma sha Allah ya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kuwii isku waara inay noqdaan awlaad khayr qaban ilaahay siiyo aamin abay macano haye hambaliyadaasna waxay ka socotaa anigii odagayga cali ما شاء الله ومن جعلها إن أي كابة قدومين أو ولي بس توصى أي كودا ونيان أنا قلنا وحى عليه هاي لبدي وده شراء نبت قلا إلى هاي إذن كيالو مركنا هالك وحن كوها يارنتي ورقة آد قرح بدن أنا حاجة كتمي ولا شيء أو إن كوجوستي يغير وحويا نبعو حاجي محمد أحمد نور waxa ay ku guursatay magaalada Burco oo gobolka Togdheer anagoo aan u kala harin dhamaanta iyo family meel kasta oo ay joogaanba ayaan jecelnahay anagoo oo waliba ka fog hadana in aan hambaliyada aadka quruxda badan leh aan kala qayb qaadano iyo guurkeeda iyo mashxarada iyo hambaliyada iyo reereynta iyo baashaalka intaba aan kuba bilaabay aabo maxamed cali maxamed iyo hooyo arday ibraahim cali iyo dhamaan caruurtooda waa kawsar maxamed cali aniga amna maxamed cali deeqa maxamed cali insaar maxamed cali qadan maxamed cali saciid maxamed cali bukhair maxamed cali abdi casiis maxamed cali iyo shaafi maxamed cali iyo waliba abti maxamed cabdi aadan abti yusuf ibraahim cali iyo caruurtiisa waxay kala yihiin iyaguna faysal yusuf ibraahim naasir yusuf ibraahim qada yusuf ibraahim muqtaar yusuf ibraahim filsan yusuf ibraahim iyo waliba nuura maxamed xasan waa walaalaha iyaguna iyo abiib maxamed xasan iyo dhamaan ilma xaaji maxamed waa walaalaheeda iyaga oo kala ah mubaarak xaaji maxamed axmed nuur rashiid xaaji maxamed axmed nuur iyo xaaskiisa roobla xaaji maxamed axmed nuur iyo xaaskiisa saleeban xaaji maxamed axmed nuur caasha xaaji maxamed axmed nuur muna xaaji maxamed axmed nuur iyo juweeriye maxamed axmed nuur iyada oo waliba aan kuba joogin familiga iyada loo kala maqnayn meel kasta oo ay joogaan ba dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxa weeyaan London waxa weeyaan Imaaraadka waxa weeyaan Somaliland Burco iyo Hargeysa aan iraahday waxa weeyaan Germany waxa weeyaan looma kala maqnaa meel kasta ba familigu waxay jecel yihiin hambalida aadka oo quruxda badan leh ay kala qayb qaataan
habaryar khadre cabdi aadan iyo caruurteeda ayaa iyaguna jecel inay hambalyadaas qaaliga kala qayb qaataan oo kala ah axmed abubakar xaaji cali qadar abubakar xaaji cali cabdikariim abubakar xaaji cali iyo weliba aamina abubakar xaaji cali habaryar hodan cabdi aadan iyo odageeda cali cawil cabdi iyo caruurtooda waa cabdiraxmaan cali cawil saciid cali cawil cali cawil maxamed cali cawil iyo weliba ismaaciil cali cawil khadra cilmi iyo caruurteeda faadimo cartan iyo caruurteeda iyo caasho cartan iyo caruurteeda ifraax maxamuud abuule iyo caruurteeda anagoonu kala hadhin dhammaantayo waxaan halkan aan uga diraynaa hambalyo runtii aada iyo aada u qaaliya waa maxamed xasan xuseen iyo nimco xaaji maxamed axmed nuur oo arooskooda uu ka dhacay waa magaalada burco gobolka togdheer waxa aanu leenahay guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi ilaahay ha ka yeelo ilaahay ha idinka dhigo labadii wada jiree nabadgala ubar khayr qabana ilaahay kala siiyo mar kale ayaan leeyahay hambalyo hambalyo walaasheeda aadka iigu qaaliga ah ayaan leeyahay hambalyo 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 waxa weeyaan nimco xaaji maxamed axmed nuur iyo odaygeeda waa maxamed xasan xuseen waxaana jecelahay in aan u dalbo aniguna dooqayga aan ugu dalbo hees ay wada qaadaan runtii laba fanaan oo aan kala dhicin oo aada u waaweyn codkoodana aada loo jecel yahay aan idhaahdabe waxa weeyaan nimco yaasiin caraale nimco sharaf iyo weliba cabdi jibaar al khaliiji waa heesay ku farayaristeen maxay yidhaahdeen waa guul alle gobi ku hanat gobi gacal ku bixiyo gobi ku hanate iyada ayaan ugu deeqay iyo odaygeedabe waxa aan jecelahay mar dhow heestaasi in aad ay nala daawan doonaan labadoodaba anoo weliba jecel in ay si toosa ay noo daawanayaan oo ay dhammaantayo ay naga guddoomeen hambalyadaasi runtii aan loo kala hadhin faamiligu meel kasta uu joogaba hadday noqoto dibaddiisa iyo hadday noqoto gudihiisa waxa weeyaan Europe waxa weeyaan Somaliland waxa weeyaan Imaaraadka intaba waxa aanu leenahay hambalyo 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 waa nimco iyo weliba maxamed bal intaanan heesta saarin ayaan jecelahay in aan khadka telefoonka aan u yeedhay salaamu calaykum salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله dalbood aan kugu soo dhaweynaya magacaaga magacii waxaa la dhahaa Saynab Abaayo Saynab xagad joogtaa waxaan kaala soo hadlayaa London haye Saynab salaan tahniyad waxaan salaamaa marka ugu horeysa asxaabteyda marka kalena familygeyga hooyaday walaalahay haye saaxiibadeyda qaaliga fahmo war dheere shuur war dheere saare cali ciid iyo intii maqlayso insha allah oo taqaan maasha allah halkan ka salaama waaba jecelahayba in ay kaa guddoomeen dhammaan asxaabtaadu salaanta aadka u qiimaha badan leh ee aad halkan ka salaamayso jecel badayna si toos ah ku daawanayaan oo ay kaa guddoomeen khadka xiga aanu yaadho salaamu calaykum السلام عليكم هلو aad baan uga xumahay telefoonkaasina wuu go-ay anagoo weliba ku guda jirna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena caawa aan kusoo dhaweeyay khadka xiga asalaamu calaykum calaykum asalaam dalbooda baan kugu soo dhaweynaya magacaaga waxaan salaamayaa huna khabiir maxamed ducaale haye faadme cismaan magacaaga qaaliye faadme cismaan buuxa leeyahay burna ka soo hadlaya haye faadimo kusoo dhawow dalbood daawo waxaan salaamayaa huna khabiir waxaan salaamayaa khabiir maxamed ducaale haye yaa kale waxaan oo magaalada boorame wiil ugu dhashay oo magaalada hallo wiilkiisa la yidhaha maxamed khabiir ducaale si fiican baan ku maqlay qaaliya kasii soco una ayaan islaantiisa oo ayaan la yidhaha ayaan badan la yidhaha salaamaya haye dhinaca telefoonkayga la soco faadimo dhinaca telefoonkayga la soco qaaliya waayahay waxaan salaamayaa xaafadeeda dhammaan waxaan salaamayaa faarax booq haye haye waxaan salaamayaa sodohday khadra daahir galde faadimo dhinaca telefoonkayga la soco please
waan ka xumahay waxaan malan de Faadimo codkeeda doonaysa inay isdhegeysatay waxaan jeclaan lahaa in ay ka faa'iideysato fursadda aadka u qaaliga ah oo ay dhinaca telefoonka igala socotaan oo mar walba daawadayaasha ku codsada barnaamijka ku celintiisa qofkii jecel inuu codkiisa maqlo ayuu ismaqli doonaa please inagoo oo waqtiga ilaalinayna in aad igala socotaan oo codsiga bashaan oo nagala socotaan dhinaca telefoonka oo iska xidhaan codka imikase waxa aan jecelaynaa idinku soo dhaweeyo runtii hees aan caawa u dooray walaashayda aadka iigu qaaliga ah waa Nimco Xaaji Maxamed Axmed Nuur iyo waliba odaygeeda waa Maxamed Xasan Xuseen oo san horeba u sheegay arooskooda uu ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer anagoon u kala hadhin dhammaan family-gu meel kasta oo ay joogaan haday noqoto wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba waa tana heestii waxaan leeyahay Nimco iyo Maxamed daawasho wacan
وهجاج nimcayaasiin iyo waliba alkhaliiji cododkoodii macmacaana aad baan uga xunay waqtiga nagu yar darteed heesta in aanan dhammayn karin laakiin nimco iyo maxamed waxa aan idin ballan qaadaya ku celinta barnaamijka inaad ka bogan doontaan heesta oo kaamila cododkoodii macmacaanana waxay ahaayeen alkhaliiji iyo waliba nimcayaasiin mar kale ayaan leeyahay hambalyo waa nimco xaaji maxamed axmed nuur iyo waliba maxamed xasan xuseen waa arooskoodu ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer dhinaca telefoonada هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام دلبود دابا kugu soo dhaweynaya magacaaga walaal magacayga Ibrahim Salaad Artan walaal waxaan ka soo hadlayaa dalka Holland gaar ahaan magaalada Haarlem haye see lagu yahay Haarlem caawa walaal waxaan hambaliyo u dirayaa barnaamij adiga ku salaamaya khaasatan salaan qaaliyan wada kala tigsanaya waxaan hambaliyo u dirayaa Saciid Shalle oo arooskiisu ka dhacay marwadiisa bishii aan soo dhaafnay September 28keedii magaalada Göteborg dalka Sweden ma sha Allah haye oo Muna Cabdisalaan iyo Saciid Shalle waxaan halkaan hambaliyo aan ugu diraynaa maama Farxiye Maxamed Shire maama Maryam Saciid Maxamuud Faarax Yaasiin Ismaan Shalle Igaal Mahdi Cabdi Cabdiqaadir Ismaan Shalle Fahma Salaad Artan Sawda Salaad Artan سكي هند سكي مهدي عبدي أحمد مهدي عبدي دمان تصدق ولا أدد ما سنتهاي أنت صدق سنة هم بليلا سنة ودرينا ولا ما شاء الله وان شعلا هاي إن أي كقدومين سلام تاسية هم بليلا سيئات كأقرح ضبطن له oo ay kuba daawanayaan anigoo qaybi u dambeeyay barnaamij ku jiraba haddana halkaasaan ka sii wadaya tahniyadii family-ga ee faraha badnayd ee nooga timid dhinaca iyo Maryan Gowle iyo waliba family-geeda runtii looma kala hadhin markana waa Ciise Faarax Ali iyo waliba caruurtiisa Annabi Yuusuf Axmed iyo dhammaan reer Faarax Ali dhammaan reer Raage Xasan oo kala ah Bashiir Raage Xasan iyo wiilkiisa iyo Nis Bashiir Raage Maryan Maxamed Raage caruurteeda Fartuun Raage Xasan iyo odaygeeda Ismaaciil Xal Xasan Firdowsa raage iyo odaygeeda Farxiyo Cismaan iyo odaygeeda Maxamed Xengaal iyo waliba caruurtooda waxa weeyaan habaryar kaltuun socdaal iyo habaryar canan bedel iyo caruurteeda Fahmo Cali Raage Nasteex Cali Raage Ikraan Axmed Raage dhamaantood iyaguna waxay jecel yihiin tahniyad kaliya laaba u diraan Ifraa Axmed Raage iyo Cabdiqaadir Xaashi Cumar oo arooskooda uu ka dhacay wadankaasi Holland waxa iyaguna kala kamid ah Kaaho Faarax Ali iyo Abti Bashiir Maxamed Xaashi أبو برة أحمد إدو هند فارح عثمان أحمد برة أحمد فوسية برة أحمد أمرا برة أحمد محمد برة أحمد إبراهيم برة أحمد مسكي برة أحمد يولي عبد الرحمن برة أحمد محمد علي فارح سمسم محمد حاشي نستيحو صالح حاشي يولي بقى أيالله نور أحمد يحاسكيسة سليخة حسين هاتشير ياسمين عبد الله علي روبله يقولنا دمان تود وحا أي همبلية رنتي آد وقالية أو اللوكال هارين أي ودريان بقرك إيه بقرده وإفراح أحمد راجع حسن إيو عبد القادر حاشي عمر وأروسكود وكدعي ودنك هولن أفريا لباتنكي ديسمبر و24 إنكي أنغو أن وكلا هارين دمان بهذا رويال تي في أنا أقوبه الرئيسين يا مريم جولة إيه دمان ورياشة كهول جلا مجال لندن ودك جوديسة إيه دبديسة إيه وليبا مملكة رويال تي في دمان تيو وح أنو لنا هاي أروسك إيه أروسده وإفراح أحمد راجع حسن إيو عبد القادر حاشي عمر إسكوارا وبض خير قبنا كله هلا إلهي هيدي كديجو لابدي isku raagay wada jiree nabad gala waxaan maleynayaa barnaamijkeena caawin inta ku eegay balkhadka xiga ugu dambeeya ayaan jecelahay in aan u yeero assalaamu calaykum aad baan uga xumahay khadkaasina fursadda aadka u qaaliga ah wuu ka go'an wuu ka faa'iideysan intaasi ayaan jecelahay in aan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeennii caawa dalbo daawo idinkoo si toosan nooga daawanayay telefishinka caalamiga Royal TV stuudiyaheena magaalada London aniga Amar Faysal ayaa mar walba idin la socodsiinayay dhinaca farsamaduna waxa weeyaan Faysal iyo waliba Naasir Yar waxaan jecelahay in aan ku soo gabagabayno hees badhawto laga soo dalbaday Muna oo London joogta ayaa waxay soo dalbatay Hodan Cabdiraxmaan heesaheeda mid kamid ah heestaasi ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkeena intaan dib u kulmi doono dhamaanteen waxaanu idin leenahay maca salaama bye bye